السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, ilaahay waxaan ka baryaa intii dhimatay islaam inuu ilaahay u naxariisto, innagana ilaahay inooga daba naxariisto. inta bugta ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay shifeeyo insha allah bismillaahi kariim. ilaahu shifee islaamka buka, kuwa jiifiya kuwa soconaya oo ilaahu shifee ka kor qaad xanuunka. annagana ilaahu caafimaadka noo daa, inta jucjucsana ilaahu ka kor qaad jucjuuca, inta dhaawacanna ilaahay umurahooda u sahal. intaa ka bacdi waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, waxaan ka hadlayaa maanta maamulka koonfur galbeed oo uu madaxweynaha ka yahay cabdicasiis lafta gareen. waan maqlayay maxay ahaydee duulaan baa lagu yahay, aan maqlayay. horena wayna ogeyn tii ku dhacday waatayna ogeyn maamulka koonfur galbeed markii ay dowladdeena qabsatay waddanka oo qaraxyo iyo mashaakil markii ay ka dhaceen, guddoomiyayaashii wasiirada iyo wixii la qarxiyey. waxaan leeyahay maxay ahaydee markii aad iska xidheen oo aad iska moosteen dadkaas dhibaatadii iyo mashaakilkooda ka yaraaday, wixii watay idinka joogsadeen mar kaliya laydinku soo afuufa. marka anigu waxaa baan u arkaa in ay ka dambeyso dowladdu waxaas arrimahaas barhkood amaba badankooda. waayo sababtu tahay markay iska moosteen wixii waa joogsadeen. iminkana waxaan leeyahay iska moosa oo inta dowladda hagaagsan waddan ka dhalanayso ama waxay isbedelayaan. daad waa la iska moosa oo hawsha sidiina hore ku wada. lafta gareenna waxaan leeyahay intii wax garaday ninka wanaagsan helimaysaan oo ka miyir badan oo ka degan. haddaad dhinaca ka dhaaftaan dhibaatooyinka dadka ku dhacay islaamiyaed iyo mashaakilka, idinkaa mas-uuliyadda qaadaya. wixii waddada cabdicasiis lafta gareen ka leexda, ninkaa waxaan u aragnaa hadaan nahay Soomaali weyn si wanaagsan inuu idin wado oo horumarkiina iyo wanaaggiina jecel yahay. tallaabadii markii uu qaaday haddaan qaadinna dad badan baa ku dhammaan lahaa maanta halkaa. iminkana waxaan leeyahay halkaa kaga hay cabdicasiis lafta gareenow. maxay ahaydee shicibka Marylandna waxaan leeyahay madaxweynena fiican baa haysataan, war taageera. waad aragtaan madaxweyne farmaajo markii lagu caasiyey oo xukunkii laga tuuray, waxaa laga dhexlay waa aragtaan dhibaatooyin iyo mashaakil iyo horumar la-aan, dib u dhac weyn baa laga dhexla. waxaan idin leeyahay taas oo kale yaan idinku dhicin. madaxweyne wanaagsan baa haysataan, taageera oo sidiina maamulka ku wada. maamulku waa ina xor ahaada, xor kor wixii lagaga soo kordhinaya dowladda kaga soo kordhinayso dadka magaca dowladda wata kaga soo kordhiyeen. laakiin waxaan idin leeyahay daadka iska moosa. reergeedu iyagana sidaas oo kale uma soo jeedanya. reergeedu waxaan leeyahay iska moosa daadka iska moosa baan leeyahay idinka. maxay ahayd oo joojiya wada shaqaynta. isku gudubka hala joojiyo. haddii wax laydinku saacideeyo wax idinku saacideeyaa jiraan, ahlan wa sahlan. laakiin isku gudubkiiyo kala bedbedelka yaan dad kale laydin keenno amaraad idin dhiga. maxay ahaydee maamulkiina waa idinku talisaan oo haddii mid la bedelayo mid kala bedelayo idinku bedeshaan, haddii mid la keeniyo idinku keentaan. dadkan warkooda intaa idin maqlayna ayaanay maxay ahaydee idiin soo dirin wax maamaraad idin dhiga. intaasaan leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.